يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة المسلمون، saad maqlayseen cinwaanka muxaadaradu waxa weeye qabyaaladda iyo dhibaatooyinka ay leedahay. qabyaaladda iyo dhibaatooyinka ay leedahay uu ku saabsan yahay. marka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood. ani iyo sheekha abaa cabdallah sheekh khaliif laba qayb baan u qaybinaynaa bidn illahi taala. marka 30 daqiiqo ayaan qaadanaya insha allah. sheekhana waxaan siinaya 30 daqiiqo. jazaahu llahu khayran. wuxuu ilaahay iga soolansiiyey ayaan 30 daqiiqo wax ka taabanaya. walaalayaal, laqad ubtuliya kathiiru min ahli اlislaam fi hada الzamaan bikhaslatin mushiina يمتد أو تمتد جذورها إلى زمن الجاهلية والجاهليين المشركين، وكانت حرب هذه الخصلة مقصدا من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم. تلك هي خصلة العصبية الجاهلية التي هي قاعدة الخروج عن شرع الله وحكمه وأساس الفساد في دين الناس ودنياهم. أيها المسلمون، ولا ليال waxaa lagu ibtileeyey dad badan oo muslimiina oo aad u badan في العالم الإسلامي، caalamka islaamka iyo muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda Soomaalida yani gaar ahaan waxaa lagu ibtileeyey sifo aad u xun oo aad u dhib badan, oo sifadaas asalkeedii ka timid waqtigii islaamka ka hor jaahiliyada lagu noolaan jiray. waqtigii islaamka ka hor jaahiliga lagu noolaan jiray, sifadaas oo ilaa halkaas ku xidhan ayaa lagu ibtileeyey dad badan oo muslimiina. nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka ilaahay soo bixiyey, waxyaabaha lala soo bixiyey waxaa ka mid ahaa in la zuuliyo sifadaas. waa ka mid sifadaas in la baabi'iyo oo allah subxaanahu wa tacaala u baabi'iyo ayaa ka mid ahayd, oo risaalada nabigu waa xambaarsanay calayhi salaatu wasalaam. sifada in lala dagaalamo sifadaas dadka qaar ay ku sifaysan yihiin, taasoo keenaysa sharciga islaamka in qofku axkaamtiisa uu ka baxo oo fasaad badan uu ka dhasha iyo dhibaato aada u badan. marka arrintaas qur-aanka wax badan buu ka hadlay. allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: huwa samaakum almuslimiina min qablu wa fi hada. allah wuxuu idinku magacaabay haddaad tihiin ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam
khaasatan kuwa mu'miniinta ee raacsan waxaa allah idinku magacaabay muslimiin ilaahay baa idinku magacaabay muslimiin huwa samaakum allah baa idinku magacaabay inaad muslimiin tihiin min qablu kutubtii idinka horreysay buu muslimiin allah idinku magacaabay subxaanahu wa tacaala wa fii haadaa qur-aankana ilaahay muslimiin buu idinku magacaabay muslimiin kuwa ilaahay u hoggaansan oo ilaahay keligii caabuda oo allah awaamirtiisa qaata ayuu ilahay idinku magacaabay subxaanahu wa tacaala bimacnaa magac kale ilaahay idinma bixin ilahay muslimiin buu idinku magacaabay islaamkuna waa taqaanaan huwa alinqiyaadu lilahi subxaanahu wa tacaala bitawxiid walistislaamu lahu biaaca walkhuluusu min ashirki wa ahlihi min ashirki walbaraa'atu min ahli islaamku waa saas macnihiisu qofku inuu tawxiid ka qaato ilaahay u hoggaansamo awaamirtiisa qaato shirkiga iyo ahlu shirkigana beri ka noqdo awaamirta ilahay oo la qaatay marka ka mid tahay in laga takhaluso khisladan soo socoto oo ah qabyaaladda qabiilka ma aha waa qabyaaladda marka islaamku dadka muslimiinta wuxuu ku magacaaba inay muslimiin yihiin asagoon u eegin waddanku degan yahay qofka midabkiisa luqada uu ku hadlaayo sida uu eeg yahay cidda dhashay isagoon ilahay u eegin subxaana wa tacaala muslimiin bilahi ku magacaabay wuxuu kaloo allah yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa ugu karaan badan allaha agtiisa qofka idinku cabsida badan kaasaa ugu karaan badan allah subxaana wa tacaala bimacnaa ilaahay agtiisa sharafka iyo karaamada waxa uu allah eegaa oo keli ah cabsida ilaahay inta aad ka haysato subxaana wa tacaala wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida dad yahow ka cabsada allah rabbigiin ka cabsada hal naf idinka abuuray maxaa hal naf loo keenay kulligiin waad simantihiin waa kulligiin aadan baa la idinka abuuray wax lagu faano oo kale ma jiraan waa waxaa lagu faani kara waxaa weeye in ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala maadaama aabbihiin uu hal yahay intaa laguma daynin wa khalaqa minhaa zawjahaa haddana allah wuxuu ka abuuray xaaskiisii afadiisii ooridiisii allah wuxuu ka abuuray aadam laftiisa oo xawo ah asaga laga sameeyey meel kale lagama keen iyaduna kamay duuneyn macnaha idan hal marjic baa loo celiyay dadkii aadam calayhi salaam waxay ku kala fadli badan yihin marka ma jiraan wa oon ahayn in allah ka cabsadaan hal mar baa hada huwa alislaam diinta ilahay waa taas qofka muslimkana waa inuu hoggaansamaa yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa walaa tatibicuu khuطuwaat shayطaan islaamnimada gala kulligiin munsadaatihiin dad muslimiina kulligeed gala qayb ha ka qaadanina qaybna ha ka tegina marka qabyaaladdu waa adoo diintii qayb ka qaatay qaybna ka tegay oo qayb diinta ka mid aad ka tagtay musiibadaas oo innaga ina haysata gaar ahaan luqada soomaaliga dadka ku hadla musiibo kale waay walaalayaal marka maadaama aabbaheenu hal yahay hooyadeenna mid tahay ayagana waxaa laga abuuray asalkii u ahaa turaab iyo ciid haddii wax ku kala fadli badnaana ma garan karo oon ahayn allah inaan ka cabsana subxaana wa tacaala oon ahayn qofku sifaad inuu la yimaado la ammaanay alla agtiisa dadka agtooda waa lagu kala fadli badnaan karaa qofka runta badan iyo qofka beenta badan waa kala fiican yihin qofka deeqsiga ah iyo qofka bakiilka waa kala fiican yihin laakiin waa sifo la kasbado ee abuurkaaga u noqon mayso qabiilkaagana u noqon mayso midabkaagana u noqon mayso laa camalkaagay u noqonaysa camalkaagay u noqonaysa marka masaladaas wuxuu kaloo allah yidhi subxaana wabatha minhumaa rijaala kathiira wa nisaa labadooda allah ka abuuray raggi iyo dumarkii intii kale waad ogtihiin abuurka laga abuuray rag iyo dumarka maxaa laga abuuray marka inta aadam iyo xawo kadib nudfa waxaa laga abuuray biyo oo allah ku magacaabay min maain mahiin biyo liito allah ka abuuray subxana wa taala axad salaf baa nin boqora ayaa u yaray nin sheekhu ah marka wuxuu ku yidhi dadkii baa salaamay marka waxaa lagu yidhi u rukuuc wuxuu yihi maya ma rukuucayo waxaan ilahay inuma rukuucayo
marka wuxuu yidhi ima garanaysid miyaanaan hebel ahay dadkaa sheekhi wuxuu yidhi dadkaasoo dhan anaa kaa aqaana waxaa tahay waa boqorkii dhanaa ogow dadka dhane kuu rukuucay anigaa kaa aqaana waxaa tahay biyo wasakhe oo maaragtay dadku ay ka yaqsadaan ee asalkaagii laga abuuray oo caloosha hooyada aad ku jirtid adigoo ah markaad soo baxdayna calooshaada waxaa ku jira kaadi iyo xaar waa in la caddeeya waay saasuu ku yidhi saxaaraa ku jirta calooshaada iyo kaadi markaad dhimatana qabrigaa lagu dhigayaa waxaa ku cunaya buu yihi maaragtay dixire baa ku cunaya oo waad soo wareysaa marka anaa ka aqaani dadkaasoo kale oo dhan maxaad sheegaysaa oo kale marka wuxuu ku daray markaad soo baxaysana ka soo baxday kaadi mareykaad ka soo baxday kaadidood meeshay soo marto ba markaad soo baxaysa war aabbaha ka imaanaysana ka soo baxday hooyada marka ka soo baxaysana kaadi mareykaad ka soo baxday ku yidhi wax alla ku xadlo ayuu waayey boqorkii waa runtii buu yidhi khalaas wax run sheegaya asagaa jira sheekha fara ka qaado ku yidhi haa-ulaa'i hum salaf oo diinta si fiican bay u fahmeen qofka marka inuu intaa fahmo ma jiraan wax ka fiican midda kale allah dadka muslimiinta wuxuu isugu xidhay fi lcaqiida wax kale la iskuguma xidhin midab walaa wadan walaa wax kale iskuguma xidhna iskuguma dhowa inama almu'minuuna ikhwa soo aayad qur-aana maaha wax kale ma jiraan mu'miniintu waxay wax kale maaha waa walaalo fi ddiin iimaankay ku yihiin walaalo inama almu'minuun wasfigaas iimaanka ayay walaalo ku yihiin waayo wasfu liimaan bay walaalo ku yihiin ama isku calool ka soo baxa ama laba kala bahood ahaada anama wado deganaada taas muhiim maaha inama almu'minuuna ikhwa waa hadday iimaan jiro oo islaamnimo jirto oo qofku diin sax rumaysan yahay waay xaqiiqada waa dhabta ah mu'miniinta waxa isku xidha waa iimaanka iyo caqiidada wax kaloo meesha yaala ma jiro walidaalika ibraahim calayhi salaam aabihii beri buu ka noqday falamaa tabayana lahu annahu caduwu lilahi tabara'a minhu markuu ogaaday inuu gaalnimo aabihiis khalaas beri buu ka noqday inuu gaalnimo musamim ku yahay beri buu ka noqday oo dacwadii ku kari waayo abulambiyaa in lagu daydana nebi maxamed baa la amray innagana waana la amray inaan ku dayano islaamnimadaasu ilaahay subxana u dardaarmay waa midda uu nebi ibraahim u dardaarmay oo nebi yacquub u dardaarmay oo isxaaq dardaarmay oo muslimiinta o dhan isku dardaarmi jireen waa islaamnimada taa keliya ah am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowt id qaal libanihi ma tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxidan ونحن له مسلمون توحيدك توحيدك إلها واحد مسلمون وتوحيد marka walaalayaalow qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay inuu diinta inta fahmo oo ku dhaqmo haddaad intaad fahamta diinta aada ku dhaqmin subxaan allah waa ibliis qofkii ibliis waa fahamsanaa wax walba laakiin waa diiday kibir ayuu u diiday iyo xaasidnimo ayuu u diido aadan buu xastay iyo isla weynaan maartay qur-aanka markaad akhri qofka muslimka inay arrintaasi gasho halis waay hadday ku dhacdan ilaahay toobad keena waay allah wuxuu yidhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixan faulaa'ika lahum jazaau dicfi bima camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun ilahi wuxu subxaana wa tacaala xoolihiina iyo caruurtiina ma aha waxa ilaah idin dhoweynaya oo ilah agtiisa aad dhawaansho kaga helaysaan zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa ilaa qofki iimaan la yimaada qofkaasa ilahi udhihi subxaana wa tacaala isna haddaan mufaraq ka dhigno waxaa weye hadal cusub waay walaakin oo kale waay macnaheed ilaa laakin man aamana wacamila saalixan faulaa'ika lahum jazaau dicfi bima camiluu waxa weeye qofkii rumeeya allah subxaana wa tacaala oo camal saalixa la yimaada abaalmarkooda oo laablaaban bay leeyihiin bisababi camalihim bimaa camiluu camalkay sameeyeen wahum fi lgurufaati aaminuun daraja u sareeya algurufaat waxaa weeye qolal aada u sareeya jannada
منازل أدوس الرئيسة أي كسر جينا آمن ولا بكون قناة يعني ويسوي حكي عبسلين وقف كجنة الله بالقادة مركا دين الإسلام ودين عامة ثقلين كجن إنس لبضبا سو مركا يصير وباقي بين أهانيسه لكن بن آدم كي أي ما رتي يجلس قيبي الله ما قيبني سبحانه وتعالى الله ما قيبني جل جلاله إسلامكم مكلا فضل دتك لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ساس النبي عليه الصلاة والسلام يعني فضلي ما يجري وقفك الكفي عن يهي هدو عرب نمو أما وعرب نمو كيف عن يهي قفك كلا عرب كأهين عجمي يقولنا كما في عنا عربك قفك آدو عد أحمر قفك مدو كما في عنا قفك مدونا قفك عد كما في عنا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى عبسيد إلهي وحن كأهي ساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم تاسوي الله وعيله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين الله وكسو بحيي والذي بعث في الأميين رسولا منهم رسول كسو دحسار أميينتي وكم من نيستي الله وأقول نعمي إنك أنا وإنه يقول نعمي مدى الله فتيضا محايا لأيها قاركم معها النبي عليه الصلاة والسلام إنك قد نواي لكن إياها مركا لا لها اللي يتلو عليهم آيات القرآن كأي وحي كدو الأخرين ويزكيهم حمانتا كطهيرية حمانتا وحاكم إذا قبيالد عصبية قبيالد إلى هذا حمانتا كم يتاهي سو مارك يسيد مارك الله عيني ويعلمه الكتاب والحكمة قرآن كان أنبرا هي حكمة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يفهم كدين صحيحة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إسلام ككهر باطن ما يكون سقناهي marka nicmada ilaahay ina siiyay oo islaamnimada ina ilaahay ku shukriyo subhanahu wa ta'ala ayaa loo baahan yahay jazakumullahu khayran mas'ala aad muhiim ah qofka looma diidana inuu ka barto abtirkiisa qaraabadiisa soo xiriiriyo qofna ilaahay ma diido subhanahu wa ta'ala ha ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib nabi alayhi salam nabi baanahay been ma aha ibn abd al-muttalib baanahay سو ماركيسيد لكن ما الفان مو كل النبي عليه الصلاه والسلام لا ابتركيس عادي وشان سو ماركيسيد marka qofka abtirkiisa caadiga inuu hebel yahay reebel yahay wax dhibaato kuma sugna laakiin mushkilad xagee ku sugan tahay qofka muslimka inaad ku fogeyso ku dhibaatayso mashaakil ugu geysato muslimta ku kala saarto uga eexato qabiil darti shaqo ugu diido dagaal ku qaadid ku disho ku dulmido ku xad gudubto علشان reebel baka dhashay bas arintaas diinta islaamka kamid ma abadan marka walaalayaalow xadiis ba soo arooray oo ah ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum nasabka waxa ka barataan waxa qaraabad ku xiriirsaan dhanka fiican u isticmaal qaraar xiriirtu macnaheedu ma qabyaalad la waxa way qofka حق أو كقولي يا إنات سيسو بس هذي بيل ولا شيء بيل بهانتا إنات بيلك وحكسيسو ولا لك قراب حرين بالإله إنات سلامتي إن السب كاغوس سجناضه إن يسكت حلان ضدك وحيابها سوي بل ديادة إن إسلام بحيان بإسلام كأمر يا وحيابها وديك إسلام بحيان مسلمين ضدك إسحجة سمار كيسيد وحيابها الإسلام كأقول يا لكن وحال الديدية وعام وضدت كده هي مسلمين تا أنا قفك قبيلة وصميسو مجرد قفك ما كان لقدي سفهمتين هترى أوه ريهب الله حقيقي جس لقدي ستفهمت وركا ورصح ما شقل ويا ريا مركو قاعدين هذا قبيلة هاين وحوله مركل يسوع واحد صح ما وسبحان الله وزير بمالك نقانا يا خير كود كلي كسو حرينا يا والدين تاس حقيقة جرتا جاهلية وعلي جرين أنا من غزية إن غاود غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي هكذا شعر واحد
anigu waxaan ka dhashay un qabiilka reer hebel la yidhaah hadday baadiyoodana waan la baadiyoobi hadday fiicnaatana waan la fiicnaan waa mantiq iyo luqad jaahili ah waay oo islaamku u baabi'ey oo loo baahnayn qofka muslimka inuu ka baxo loo baahan yahay masalada dadku inay fahmaan waay marka walaalayaalow masaladan si gooni ah bay dhib inooga haysaa waa tii halkan Soomaali keentay ee burburisay waa tii halkan keentay waa tay ka degilaadahay way ilaa iyo hadda niman la sheekaysa waxaan idhi war maxaa marka maartay adigu helinaysaan kada oo maartay annaga madaxweynaha keensanay madaxweyne hebel sheegi maayo hadda markaan ku wari idinkoo ayaa anagu reer hebel hadduu waxaan rasamay u maqli waayana waa ka eriyeyna subxaan allah oo maxaa ka kale ku diidaysaan Soomaali waxay isma aaminayso waxay soo aamin leedahay nin walba wuxuu ka cabsan in lagu dulmiyo xukunka marka waa in reerkaada oo soo saaro waxa kale oo sheegay qiso kale wiil Soomaaliya baa walaalihii oo Yurub iyo Mareykan jooga lacag ka codsaday wuxuu yiri niman waan business baan sameeyay lacag la soo diro waa laga cabsi telefoonada laga xirtay waa walaalihii isagu shib kii ugu fiicnaa ugu soo wici doona kii kale wuxuu yiri hebel bal xogaa tii markii saa u dhacday wuu fikiray wuxuu yiri wallahi saad yeeshay lacag ka gashay nimankan baarlamaankan ka qayb galaya wiil marka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya doorasho ah la igu caawiyo social media soo gal inuu doorasho u taagan yahay fadhiyo uusan ogeyn baa lagu qabtay Yurub iyo Mareykan lacag waalan 40,000 baa loo shubay 40,000 baa loo shubay ninkii 40,000 gacantiisa markay soo gashay aqal badan baa business ku furtaaya waa maxay ka qaban karaan marka taageero muxuu ku helay reer hebel baan matalaya ma fiirinayaan qofkan meesha ma u qalmaa qof munaasaba ma yahay qof wax qaban kara ma yahay qof wadanka wax u tari ma yahay xataa wadaniyad ma laha Soomaalidu qabyaaladu waxay gaarsantahay heer la yaab leh waxaad arkaysaa nin madaxa la soo dooranaya kuwa ku kacsanaanaya wax walba ka sheegayaan koodi baa soo galaya shib marka Soomaalidu indhahooda waa qoosay wadaad baa la keenaya isfiirna horta nin ku waayo wadaad ku waayo la hawla wala quwwata war diinta islaamka goorma halka in yaani dad muslimiina meenan ahayn waa riyaab la waay ala kulli xaal waqtiga sheekh Socodsi khair la kusi waxaan soo qaadanayaa aayadaha kadib dhowr xadiis oo kooban nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه وكما قال عليه الصلاة والسلام قفكي دتك ugu qayliya jaahiladu waxay isugu yeeri jireen dadka ugu yeera يا رهبلاي يا رهبلاي قفكي يداهدا طلع ايي قفكي يداه يا رهبلاي قفكي سيل هذا وين بعزال الجاهليه قنيسيه حبنك ترنك ابيه معناه هو قرين كدها هذا الخيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك حشود بدن برنس عليه الصلاه والسلام ابدا قفك حشود بدن gabadha maqbiyada gurigooda ka soo bixin asaaka xishood badna laakiin markan wuxuu isticmaalay kelimad aad u adag oo ah qofka in la yiraahdo xubinka aabaha qaniin oo toos magaciisa la sheego waliba ana xubinkan la ilaa isaga magaciisa la sheego yiri harkaas islaamku gaarsi xubinka taranka aabaha qaniin ku dhax qofkii dadka yaa reehebelay ugu yeera هذا أركتان مركز ساوي يارا سحابي كان قصة كتمت هذا الكيس مارت قصة كتمت نبى يعريه بلا يدي مارك ما خاصه قصة كان وحنقول هاي ولا أبها بالكيس غني هذا قص ساسا ما تساوي هذا يساوي يدي وحكروا أنت عن مدي كرو النبي سيد عليه الصلاة والسلام ما كمسألة وحاوي مسألة دقيقة واي أو لأن اللي بتدي كين يسوع أي كدران مركز الدعوة للقبائل يا لابن فلان يا ريق صحة يا ريق يدراي واحد صح ما
ها Soomaalidu qabaa'ilkooda isugu mashaakil waa dhibaato waa marka walaalayaal nabiga halkaas uu gaarsiiyay alayhi salaatu wasalaam mas'ala aad iyo aad u dhib badan waay xadiidka labaad oo raba inaad xusuusiyo nabiga alayhi salaatu xadiis Abu Hurayra wuxuu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man qatala tahta raayatin ummiyya أو يغضب لعصبية يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية حديث صحيح ويا وسنن نسائي كقرا حديث صحيح النبي عليه السلام وحوليه قفكي دغالمه على هوستي عند الآن عند الآن حقيقة بعض القبك العداء عند الآن تحاول حقي باطل لما كلا قرنا قفك كود دجالمه ودجالك قبيلك كميدا أما دجالك أحزابتي جماعات المسلمين كيس دلاي أما دجالك قبائل كيس دلاي وأسكمد قفك كود دجالمه أما أو عروضة عصبية يريه بلي يطلع أو عروضة وضدك ساء ويانا أول الديلو لماشيه سوى قتلة جاهلية وعقول انتي لماشو جاهلية أيول انتي إسلامك شقوكم لها maxay idin la tahay marka Soomaaliya wax ku dhacay walaalayaal mas'ala oo aad adag waay qofku aad isaga ilaaliyo waay wuxuu kaloo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska laftiisa riwaaya kale falaysa min ummati ummadda nabi maxamed kamid maaha marka walaalayaal mas'aladan aad iyo aad bay u adag tahay marka umiya waxa weeye ad-da'watu al-amya imam ahmed wuxuu yiri rahimahullah al-amru al-a'ma lil-'asabiyyati لا يستبين ما وجهه والعصبة هم بنو العم نعم والعصبية أخذت من العصبة إذن وحالك كياني قفك المأذيرتس قفك المأذير أدق على الله كل كيسو صعبة صبانا دانا أما لعاكو بحي أما دقالك بقوريك قادو أما يوتيوبر انتهت يوتيوبر مالها ما لك سوقيلي ما انتدن oo caraatan oo qay oo dad ummada dhan iska aflagaadeen ummada dhan oo saalix iyo taalix ku jiro kulligood wax ka sheeg reebel baasaas subhanallah wa reebel awliya ku jirta ilaahay muwahhidiin bay leeyihiin saalixiin bay leeyihiin culimo bay leeyihiin dad xun iyo dad wanaagsan bay leeyihiin hatta ala qal ma dhaayaan hebel ba waxa sameeyay subhanallah طيب marka masaa'ilka noocaas oo kale taa waxa weey ugu dambaystii waxaan rabaa walaalayaal masaa'ilkan masaa'il aad iyo aad u adag way Umar wuxuu radiyallahu anhu riwaaya saxiixa haday qabiil dadku isugu yeeraan as-sayfa qabaa'ilka carbeed haday qabiil isugu warwacdaan fa-sayfa sayf soo qaata laaya hatta يعني هذا المعنى يسيها يأخذ بدعوة الإسلام يا للمسلمين إلى لك قسيو سيف لا دعوي الكواس الله قرآن وحكوين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا صح حكومة إسلام هذا تتكس خفتان هذا لو مسلمين ازدلال طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما وعدوا دعقلي كرتا إصلاح بس شو شيء هذا دقالك دحقل فإن بغض إحداهما على الأخرى من ذمتك لك واحد قدفته فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل الأمر الله مد حد قدك ودا كل جن يسوقتك هاون حنا إلى أوغلاتو إصلاحا أو قرقات كي أوغلاتو ودقالك جوجيسو أي أوغلاتو فإن فاءت هذي أوغلادان فأصلحوا بينهما حاجاتي ولا لين دحوض وأقسطوا فأصلحوا بينهما بالعدل عدالة وسمية عدالة أنت اللي جايين إني أوغلادان وشرعين اللي حكموا والله إصلاحية دحوض وين أوغلادان بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين حاجاتي دحوض إصلاحية إلهي وجعل دتك عدالة سمية عدالة وسمية دتك مسألة أنت سبقتها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله waxaas ku qabataan ilaahay u celiyo maartay diinta u celiyo marka walaalayaal arintu intaas ay ku dhan tahay qofkii khayr u dhaxgeli kara
khayr ha u dhex galo haddii kale fidnada afkaaga ka hayso gurigaaga ka joog seeftaada jebi ha ka qayb qaadan dadku hadday diidaan fitanka yaa dagaalka geli lahaa laba nin oo siyaasiya maxay ku ciyaarayaan masalan dagaalka wax geli kara ma jiro qof dan wata marka sheekhan inta uga gudbayaa inaan ku wareejiyo hadalka jazaakum allahu khayran mas'aladaas waa ina dhibtay waa in dadka Soomaalidu ay arinta fahmaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Soomaalida arinta inay fahmaan way intaas aan deelaha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد موضوعا استقع وكهل لي أخونا الشيخ محمد مسلم حفظه الله يكون صابسا قبيلة qof kasta oo Soomaaliya haddaad weydiido qabyaaladu ma fiican tahay mayu ku leeyahay wax xun waayu ku leeyahay qabyaaladu qof miyaa nagu jira caawa meeshaan fadhiya qof yiri qof weyn waa iskugu jirnaa oranaya qabyaaladu waa arrin fiican hadduu jiro gacanta ha taago qabyaaladu waa arrin fiican qof Soomaali waa fiicanta oranaya ma jiro qof aan ku dhaqmina waa yaryahay qof aan ku dhaqmina waa yaryahay waxa fiican runta in la isu sheego qofkuna aanu naftiisa sirin marar badan waxaa jirta waxa qabyaalada la leeyahay dadka intooda badan ma fahamsana waxa laga yaabaa haddaan fahmi lahayn inaan iskaga tegi lahayn بتوفيق من الله عز وجل وحالها أهل العلم والحكم في شيء فرع عن تصوره شيء أنا حكمته وأما هناك أما حني كل شيء كتاع وحي كل حرمته فهم كأشياء كهيستي قبيلة ذي محطها هذا ويديدو إن بدنوا كمية الصومالية قبيلة دوام محي مركز كوا فقنا إني حنتها كدي qofba waxa uu kugu sheegay waxa laga yaabaa qofba qabyaalada wax kamid ah inuu ku sheego sida Sheekh Maxamed ka dhawaajiyay waxa kala jirta qabiil iyo qabyaalad qabiil dadka ka dhalatay oo xagga aabaha aad ku abtirsato qabiiladna ka dhalatay ilaah baana ka dhigay sida ilaahay u yiri waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila mana ikiri kartid mana ka bari noqon kartid mana ku faani kartid waad u dhalatay ayaad ka tirsan tahay qabyaaladu marka maxaa khaasatan qabyaalada Soomaalida ku dhaqanto waxay ku dhisan tahay raximka in la jaro dadka raximka ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu waajibiyay inaan xiriirino waliba raximka qofka ugu horeeyo oo hooya in la gooyo way qabyaalada macnaheedu lagu xijiyo qof dumar oo dhan haween oo dhan in la jaro lagu xijiyo qofkii rag ah ee dumar soo marana in la jaro loo eexdo aabe ku dhalay aabihiis odayaal mutaxan oo awooyaala oo kaliya loo tacasubo iyaga la soo dhaweysto iyaga lagu farxo هذا كامل فهم كلام وهاي la jaro hooyadii ku dhashay oo u aragto qof ajnabi iyo wax allaale wixii xageeda soo mara rag iyo dumarba inay dad ajnabi ka yihiin aabaha iyo aabihi illa aadam laga gaarana u tacasubto oo ku dhow yihiin way macnaha qabyaaladu tusaalan idin siinaya walaalayaal hadda dagaal ka socda ilaahay qaboojiyo magaalada Laascaano nin kamid ah labada qabiil ee ugu weyn dadka loo tiirinayo inay meeshaas
dagaal ka socda ayaa wuxuu yiri hooyaday i dhashay $150 ee aan sii jiray bil walba waa ka goostay waxaan u wareejiyay ciidan hebel ninkan aabihiisna waa reerka labada qabiil mid kamid ah hooyadiina waa labada qabiilka kale kii hooyadii wuxuu la jiraa marka qabiilka aabihiis hooyadii dhashay $150 ee uu dibadda uga soo jiri jiray bil walba waa ka jaray wuxuu ku wareejiyay qabiilka uu leeyahay waa dhinaca aabihi sheeko maaha wax jira oo xaqiiqo ah magaciisa xataa waa aqaan waxaa kaaga daran arrintaa wax laga xumaado oo laga qalbi jabo dadkii ka hadlay awalba waxay tiri muxuu ahaa hooyada muxuu aabbaha uu wax xun ahaa markuu ka guursaday reebe qofka isaga raximkii ma jiray mase ma jirin hooyadu raximata mase maaha raximku waa caloosha ilmuhu meeshay galaan waaba hooyaba raximka dadka dhinaca hooyadaana waa raximka hooya ugu horeysa habar yar dadkaasoo dhan waa raximkaaga abtiyaal waa raximka aabbuhuna waa raxim iyo dhinaciisa wala adeeradii iyo eedooyinkii waa raxim arxaamtu saas weeye nabi sal slam wuxuu yidhi tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum حديث صحيح أو حديث أبي هريرة تلميذ سووري شعبان وصحيح يعني قفك الرحم كيس إنه برتو سوء حريريو نصب كيس على شيء إنه برتو سوء رحم كو حريريو نصب كوا محير رحم كوا محير سواء على قاركو إنه فهم رحم كلنا عابا كليون رحم كوا لنا هويو سجابه الرياب وهوي رحم كعلوشي وعلم جلانكي هو إيو عبيه دين عيسى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له صحابة هذا المعني مصر هدا فرتان وانا كل رقم ددك ان لهم رحما رحم بيلي محاوايه النبي صلى الله عليه وسلم اوويس نبي الله اسماعيل هو يدي با ري مصر نبي الله ابراهيم حاسكيس وري مصر والرحم دنا هو يحيى كيم الرحم ري مصر دنا الرحم انه النبي صلى الله عليه وسلم مقصود وحوي qofka isaga ninka isaga raximkiiga u jira hooyadii buu jiray wax allaale wixii dhinaceeda ka yimaadana saas u jira qof wada hooyo biil ka goostay ma habaryar oo siina ma abti oo siina maya dhacdo kale dad magac qabiil uu sheegayo Soomaalida kamid ah ayaa mid baa laga dilay nin baa nin dilay hada ka saas ku saxsan markaa waxay dhaheen kuwii ninkaas uu ku agtarsanayay la dilay wareebela nin laga dilayaa nooga aarguday wiil baa yiri ana ka soo aarguda kan gacanta taagaya aabihi waa reerkan orana waxbaan ka dilay hooyadina waa reerka la oranay nin bay dileen waa baxay meel hebel joogan reebel waa dhaqaaji wuxuu ku soo hooyaday dhacday 100% waa dadkii goob jooga ayaa ii sheegay oo maqlay wixii dhacay wuu baxay ninkii wuxuu rabaa reebel inuu soo dilo yaa reebelka waa hooyadii caloosha ku qaaday dadkii ka dhalatay abtiyaashiisu waa baxday wuu baxay wuxuu ku soo hooyaday habaryartii hooyada dhalatay waa wiilkii walaashay dhashamiya wada reebaaday in muddo is arkin hooy warha way koolkoolisay habeenkii dhaqaaleeyay subaxii bay waxay siisay 10 neef oo ariga lacag ma haysato wuxuu yiri habar waxaan aadaa meel hebla ka hayso ila ma aha nin xoolo u watay waa nin raba inuu dad soo dilo magaca hooyadii waxa wata inuu dilo uu socda marka wuxuu yiri habar ma xoolo ma ka haysan karo maxay wax kale ma haye waxa doonto ku iibso $10,000 shilin siisaa darabtay ma ka haysan karo wiilkii ay dhashay ay ku dartay saawir walaalka la kacay xoolaha meeshii u socdeen tageen markii u tageen uu sheegay kuwii isku reerka lolaha xagga aabaha hadafka uu leeyahay nin reebana raba inaan dilo waxa ay kuwaan waa colaada gashay waa hubaysan yihiin kan kula socda kan laftirkiisa reebana wiilkii habartii dhashay oo sii socda oo xoolaha la keenay oo shan xabad ku dhiftay
walaalka ii sheegay qofka ii sheegay waa walaalkii xabadda dhawaqeeda maqlaw goobtana ku soo baxay habeertii markii loo sheegay waa suuxday asbuuc baa maskaxdu ka maqnaa miyir ka maqnaa ninkaas raximka ma jara mise ma jarin raxim jar ma taam samaa aqliyadda qabyaaladu waa waxaas ku dhisan aabe shanaad soddonaad qofaad ka tirsato 30 oday 20 oday ka badan inaad isxijido qof hooyada waxa weeyaan ma taqaanaa inaad u aragto qof ajnabi walaalayaal haddii marka qabyaaladu ay tahay in dumarka la nin baa wuxuu yidhi nin baa ii sheegay nin wuxuu reehebe iyo annaga isdagaalno waxaan ka dilnay 17 qof ninka oran reehebe aan isdagaalnay xagga hooyada ayayadiisa labaad waa reerka hebel oo uu leeyahay waxaan ka dilnay 17 qof waa ayayadiisa labaad aabihii hooyadeedu dadkay ka dhalatay wuxuu yiri hebel 17 aan ka dilnay walaalkii ka weyn oo la hadlaayo oo waxaan ilaahay qabyaalada ka badbaadiyay ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma 17 aan ka dilay maya annaga ka dilnay uu ku celi la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un 17 aan ka dilay war walaal ima fahmin adiga reer hebel laga dilay annagoo reer hebel dilnay aqliga la adahayo yiri dadka aad ka dhigayo ajnabi waa hooyadii aabaha dhashay ee ku soo koriday hooyadeedu dadkeedii dadkana u tacasibana 20 oday ka tirsata xagga aabaha magaca isugu imaatiin 20 oday maxaa kuwan u fogeydo kuwan u soo dhaweysay ayayadii aabaha dhashay aabaha hooyadii dhashay maxay dadkeedii ajnabi u noqdeen odaga 20aadna xagga aabahana uu ku noqdo qof ku xiga walaaliya hadda waxaan shaki lahayn waxaan masaa'ilkan fadhi karaa qof hooyadiina qabiil tahay aabihina qabiil yahay ma nagu jiraa yaa gacanta taagaya qof baaraka allahu fiik adeer aabaha isha aabaha reehebel waa reerkeeba maya wadhib maya ma aha waa dhalasho taa waa dhalasho waa sii hormariyey qofku reer waa dhalasho taas waa diintaaba qabtaba litacaarafu ma fahmino laakiin maadaama xaraj ka darantay iska dhaq ulajeedku waxa waaye waxaad arkaysaa qof Soomaali su'aal ahaan innaga alxamdulillah waa arrintan xasuusinay noo tahay inteena meeshaan fadhina waxa shaqo kuma lihi insha Allah waxaa arkay nin hooyadii waa reer hebel aabihina waa reer kale wuxuu ninkaanu la xamanaya hooyadii dhashay dadkeeda mid xagga aabaha ay isku yimaadaan 30 oday ay kala tirsadaan يعني قبائل الصومالية مثل هذا أي مقعاب أنا مو مقعاب قف هاي مقعاب يا قبيلة إله قبيلة مقعس إيشين رير بري رير فقي جزاك الله خير نبا هو يدي وحيته رير فقي أبينا قبيل كلا يقول شيء يا شانشي أبينا وشانشي أبي وشانشي أو يدينا ورير فقي يا كسر عنك وكسر لا لحظة waxaan lagu kaftamin baa jira waxaan lagu kaftamin baa jira been laguma kaftamo hada ogaado been laguma kaftamo أنا ببيتي في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا في وسط الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة اللي حيسكويا لا أبلنا قالي قفك بين تكتجا هبا كفتما يا بركة بين وما كفتما نعم أبقى يا برجي واحد كل وصومالي وهو المركة مثل أبقى يا برجي نبا هو يدي وأبقى تصار أهم أبينا وهبرجي
qolaha habar gidira waa aabihi waa habar gidir hooyadu waa abka qolaha habar gidira oo ay ku kulmaan maalan aan ka soo qaadan qabaa'ilka habar gidir laf kamida midka laf kala wuxuu la xamanayaa oo la dagaal gelayaa oo hub la ururinayaa si uu ula dagaalamo ula dagaal galo qabiilka abgaal u weeraro hooyadii dhashay dadkeedii ninkan wuxuu ka tirsadaa oo habargidiraan isugu yimaadaan tusaale ahaan 25 oday xataa lafta dhow maaha awoowo dhow xataa maaha 20 oday hooyadii caloosha ku qaaday dadkeediina wuxuu u arkaa abgaal dad ajnabiya oo waxa way cadowga oo waxoodu qabyaaladu waxay ku dhisantahay marka waa raxim la jaro raximka la jarana cuquub uu leeyahay cuquubada waxaa ka mid ah waana midda aan ka baqa in Soomaalida ay hayso qofka raximka jara ilaahay wuxuu ku goodiyay inuu ku rido lacnad in dhalaan iyo dhagala'aan فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم رحمك قفك جرى لعنة إلهي بكل علي إن دها يدقها إلهي ترى ما قفك ولالك هبريرت لا شيء دلي هذا ولالك عندنا مدلين أقاوه هبريرتي ساد شيء هذا شيء أقاوه وأنا أسمي حوله لود أقاوه قفك الدلي قفك إستجا ما قف دقو يعقل لميع ما أبدا هو يدي لشيء قفك كجوس بيركي بقول كنت $1 وسينة نينو أوضاع الطبانات أما السلطنات كل مدرت تقول لي ما قف قلبي يمسكح يسفرون تايبا وإنكار بقول عليه فأصمم وأعمى أبصارهم ولا ليال قبيلة وحكم ذا مثلا نبى نندلي محل ليه ريهبل أن نجدلي ريهبل أي أن نجدلي ريهبل كان الدنيا كلنا أو أمريكا قبل ذلك الدول يا تشاينا يا روسيا يا يوكرين يا مقعو ماشى باكستان يا عرب يا عجم يا صومالي كلنا مية هذين وددلي ريهبل أن نجدلي من ريهبل واحد وددلي مرة ما عرفتها وابين وابين وانا ظلمي محاير إلا يراد هبل دلي ولا تزر وازرة وزر أخرى قف ذنب قال قف كل ذنب ما قال مركا انت لو أرانا هبل من دلي وحال لي ريه هبل من نقدي ضدك اللي يسكو جملة ولا يسكو قبطنا حكم كنا آن ولا قلنا وظلمي وقد يالد waxay kamid tahay cibaaraadka mar walba lagu celinayo oo qabyaalada reehebel naga dilay reehebel nin ma wada dili karaan mana wada dilin mujrim baa dilay ninka haduu ka daran yahay oo la kac u sameeyay waa dambiye isaga u baahan in lagu mataqaana xaqi laga doonto waxa kamid ah in la yiraahdo reehebel baa dhul naga haysta waxaan maqlay xataa wadaad magaalooyinka waa weyn oo مثلا tusaale ahaan Soomaaliya Kismaayo kale أرانا يا ريهبل باسكال ريهبل بالله ريهبل بقعت تصال عن حكيك بيجرت الدين الريهبل دول كاسكال أين هذا ريهبل دول كاله مجال الريهبل على أو دول كواحد مجال واحد كله ريهبلو وح أديك على قاعد دحلا وح أديك مركز لما تلاقي دحلا دول كاد بالكيدي سلام جناح سجى أدوله لعكت على كاس أدوله دول كان كلامي درس كود جمالي هذا دول كان مالي ريهبل دول كان كماله دول كان كمالي هبل وإنه تكسره ريدا كمالي حداد جورجان دول كان له هذا أو ما أنت متكلم كائب سدو أدور عليك كامل إيه مثل كربته $1 مليون $2 مليون قاعد لعكتي آد قاعدته دول كان ما أنت أدا إسكالي لديه ما هبل كاجسه ريو إسكالي أنا اللي يقول أبور إلهي يقول أبور لديه ما ريهبل مش يقول أبور قفك مركان ملكية دولك لها إسكالي قفك أسنى أجنبي كما دولك وهنتديسي ودولكيسي واللوغة بدنيا مجيريسو قفك نقولكيسي إن لقولي إن قفك هنتديسي للالي واللوغة سهرين أديدي ميسو دادك وحا دولك دادك ملكية دولك والله بمي أما ودول دادك كدحية لما كلا لها
waxaa kamid a jidadkaa kamid a waxaa kamid a biyaha roobka ka yima balliyada daaci ayaa kamid a ilaahay cirka ka keeno waxaa kamid a daaqaa kamid a waxaa kamid a dabkaa kamid a nabi sal almuslimuuna shurakaau fi halaath muslimiintu saddex wadaagay ku yihiin alkala-u waa daaqii waaye cawskii ilaahay biyihii roob kusoo bixiyey walmaa waa biyihii ilaahay keena maaha kuwii adiga barkadaada kugu jira ceelkaa adigu qodato qarashka gelida ma aha waa biyihii balliga yaalo waa webigii durduraaya dadku waa shurakay kulihi mau diidi kartid wahaakadaa dabki marka waxyaaba dadku ay wada leeyihiin cid gooniya ma laha jidkaan dadku wada maraan waa la leeyahay jidkaan cid gaaroo le ma jiro mana lagaa dhaxlaayo haddaad dhimato adigu jidkaan laakiin gurigaaga adaa lagaa dhaxlay hantidaa adaa laga dhaxlay marka arrimaha ree hebela meesha le halkay ka jirtaa ree hebel yaa ree hebel si gaara u siiyey meesha nacam waa lagu kala badan waa la degan yahay lagumana dulmi karo lagamana qaadan karo dhulkooda lagumana weerari karo wax xaaran laakiin qofkaa la degan ee hantida ku leh sida iyagu uleeyihiin uleeyahy kursi madax maqaam iyo mansibna laguma diidi karo hantidiisana lagama xalaaleysan karo lagama billiqaysan karo shaqa kuma laha cid meel kala degan waxay kamid tahay suwarka qabyaaladda waxaa kamid ah suwarka qabyaaladda qabyaaladdu waxay keenaysaan hadda sheegay dhalasho ahaan qof adooga labaatanaad aada iskugu imaataan inaad kasoo dhaweydo qof aad iskugu imaataan waxa weeye adooga labaad hooyo markaan sheegnay in la jaray dumar dhanna waa la jaray walaashaa ninka qabaa kuma xisaabsana ree hebelow kalow kaaya ma ujeeda maaha xataa hooyada ninka dhalay ree hebel kalow kaaya ree hebel oo kale ayuu kaayahay awowga xagga aab hooyada waxaa ku xisaabsan awowga xagga aabbaha ree hebel oo kaaya walaalayaal aan isweydiin qofka haddaynu soomaalina saa u fakerinahay oo hadda ninkaas dagaalkaa gaarkaa hon sheegay yiri hooyadii $150 waan ka leexiyey waan u leexiyey hadduu dhihi lahaa war dadka isdagaalamaa waa dadkii hooyaday dhinaceeda aabbahay dhinacooda haddaanan cid u eexanaynin eexduna ma banaana waa xaaraan waa ii siman yihin dadka iyaga aabbahay dadkiisii hooyadii dadkoodii ma dhici karto inaan weeraro la dagaal ku qaado hooyadeydii i dhashay caloosha igu qaaday dadka kasoo jeeda wax dhici kara maa laa caqlan walaa sharcan aabbahayna sidaas oo kale dagaalka soomaali intaas ku eeg dayaa la dagaalami ma hooyada aad weerarin ma abtigaa la dagaalami oo maxaad ula dagaalami ma inay dhinaca hooyadaa ay soo mareen maxaasba diin baa ma caqli baa waa safahwa qabyaalada halkaasi ku bixi biidn illaahi tacala waxaa kamid a qof baa la doorana madaxweyneha maanta la doorana madaxweyne qofkaas caqiido loo eegi maayo mabda loo eegi maayo wanaag loo eegi maayo iyo u dhashay waxaa la eegaa magaca aabbaha kontaroodaba ha kaa tirsado magaca guud baa la eegi waa ninkaygii waay marka waa ku farxaysaa waa faajir taaruk salaada haye nin kalaa la magacaaba oo dhinaca hooyada ah waa ka nexe taageero muujimeyd dagaal qaada annaga ree heldaan nahay kursina lama siin kulluhaa mabniya calaa ibcaadi lummi wa ahliha wa taqriibi alabi wa ahlihi oo weliba taqriiban waxa waay baadil ku dhisan waxaa kamid a qabyaalada walaalayaal qof wanaagsan oo saalixa oo la wada og yahay ilaahay ka cabsada dadka ay ka nabad galaan ilaahay subxaana diintiisa ku toosan ayaa waxaad u arkay in qof ajnabi kaa fogi faajir kaloo taarugsanoo dadka dhubiyo ogtaan inuu ku-xigaad u arkay saasaad qalbigaa iska dhaadhic waa ku farxee ninkan mataqaana dhinaca aabbaha kaaga yimid ee faajirka markaa arag midkan kale aabbaha saalixa safkaaga hor ilaahay kaaga cabsida badan aad baad ogta dadkuna ogyihiin waxa weeye waa wax kale walaalayaal qabyaalada daraaddeed qabaa'il dhan oo soomaaliya la xaqira qabaa'il dhan oo soomaaliya magacya loola baxay waa kaa qurux badan yihi waa kaa cibaado badan yihi waa kaa cilmi badan yihi waa la wada ogyahay wax la qarin kara maaha ilahay waa qofka cilmiga quruxda siiy saasay tahana dadka qabaa'ilka waa la xaqiraa waa la yasaa lagama guursado looma guuriyo calaa ayi diini waa asaas waa maxa waxa diintay halka ku noolna annaga aawa wixii nusuusii faraha badnaa sheekhu akrinay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu walaalo waa ilaah baa saa yiri inaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa lab iyo dhadig baa idinka abuurnay
وجعلناكم شعوبا وقبائل قبيلوين يوحنا كدغن امدو لتعارف ساسو غرتان ان اكرمكم عند الله اتقاكم الهي اكتي كان إذن كرامة بد إذن لام دارسن كان إذن عكس سيدا بدون دينتي واساس قبيلة دوا الدين قبيلة دوا الدين كسهول جد دين الإسلام بكل معانيها ولا والبلاء إلهي درت إن وحلو حرير إلهي درت وحلو سور لوي إلهي أمر قبيلة دوا حلال المية وحكى لك سور لوي وحنكو حرير ولا ليه وحاكمنا صور قبيلة دوا حاكمنا نسأل الله السلامة والعافية وحكم ذا فسهات كذا قبيلة وحي كانت وحكم ذا شرط ذا وحكم ذا تنقول لابتو لبن مدبا مدوح كدليا صومالي قديه قبيلة حمد انت اللي اكتهي dadka magaalada ku nool masaajidka iskuul tukana haday doonaan maqaayada isla la business ku ka dhaxeeyay ganacsigu uu ka dhaxeeyay ayaa isku colaadina sharteedu waa shar aan xuduud lahayn qabyaaladu xuduud ma laha sharteedu caalamka dhan bay saameynayaan dadka kala jooga wallahi goboladii dadka jooga isnacay qaarkood dadkii masaajidka jooga is colaadi ya jamaa maxaa anaga naga gal waxa ka dhacaya meel heblo oo xataa warka ma ayn xataa waxa xaqiiqda qof walba dhinac wax ka dhageysta hal qolob dhigta ka dhageysta maxaa aniga adiga naga galay arinta iyada sida diintu sheegaydo haddaan qolooyinka dhex geli karno oo islaaxi karno waa dad muslimiin aan islaaxino anagoo u siman adiguna dhinaca raac anuguna yaan dhinaca raac nagoo wada jirna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu maqlay nin saxaabiya oo reer muhaajir ah ayaa haraati wuxuu laad ku dhiftay ama dharbaaxsho mid reer ansaar markaa yaa lal muhaajir yaa lal ansaar ariya reer ansaaraho ansaar waa dadkii nabiga u gargaaray calayhi salaam ee reer madiina كي مهاجر كان قال المهاجرين ولا غير مهاجرين نبي مركم مقلة وحول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما قبيالة دي غير الأنت الجاهلية قال هذا وقت يلي مياه وضعنوا إذن دحجوا دعوها فإنها ممتنة واسكنها فأقورنا أفر سيئ وكلا أبتر سنة لا لا حتى وكلا أبتر سنة مقع إلهي بإيه مهاجري أنصار وكلا أبتر سنة لكن مركي مقع مهاجر كان لو أليكس إن لو كلا قيب مسلمين تي muslimiintii midda aha ee walaalaha ee muuminiinta aha lagu kala saaro ee kii yimaada midna ansaar la safanayo midna muhaajiriin la safanayo nabigu sallallahu alayhi wasallam qabyaalad qurun ku sheegay laakiin ninka Abdullah ibn Salul munaafiqa wuxuu saas maanta noo keenay miya magaalada markaan ku laabano kuwa duliinta waa laga saar la yukhrijanna al-a'azz minha al-adl kan sharafta له ورأي أنصار وكولا سووا إسكالية إنه رأي أنصار وحماسونا يسوي رأي مدينة واحد كان مهاجر كاه الدنيا سوا كبحنين منافق وايه نك دبك قبيلة دقال بالريه بلا وحنا مصنيك ريه بالمنطقة نوكنا والله كاس وحقاتي جدكي عبد الله بن سلول المنافقة قف كيرا وركد داية قبيلة دا ريه بالريه بالدافع قام مسلمين وقلا قف كالدرن قبطة كان سحسن قرسينا وأوقات طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ليا قبيلة دوحة كم إذا أرميه إذا لياب كله ماشي نفرش الشيخ محمد الشيخ حاكيني اسمه الدين ولا ليا ماشي نكونوا نعاو بل درس كينا عن إياكم نقول دين معه أنتوا إذا بلا نقول مذهب معه لقد حتى سيف يعيش مفهمه رقم وركي سبا داف وأنا كلا نبضنا الحمد لله وكان نبضنا وأنا كان نبضنا maxaa keenay inagu wadankeena dhex joogno oo isku luqada oo isku dhaqan oo xidid ah oo wax walba iskaga oo kala aqoon inaan wada noolaaway maxaa keenay inaan ku dhex noolaano dad naga diin iyo dhaqan iyo midab iyo luqad wax walba nooga duwan bini aadanimada aan ahayn inagu intii iskala midna inaan wada noolaaway isku nabad geli weyno maxaa sababa walaaliya qabyaalad magaalada Mareykanka meel kamid ah oo Minnesota ku taala afar dabaqo iska soo horjeed oo lagu yiri dad aad u fara badan kumaan kuna ku nool Soomaali oo markaad ka soo degto jaranjarada aad ka soo degto ama elevator soo raacdo aad arkayso wiil Soomaali gabar Soomaali isdhuuqayo cid la hadli kartaa wajin daroogo iyo balaay cabay dadka ayaga waxay ka yimaadeen dhulka Soomaaliya la ogaa
ككون بدأ إلهي حولها سي إلهي بيرها سي إلهي وبيده سي دتك اسكو دينتا إلهي سي اسكو مذهب كاسي حدث كاسي اسكو مذهب كاسي اسكو لقدا سي عموما دول كاسا وبلا رانا انت نقول في الاول افر دبق انا لكو اوروري اسان رالي كنا قبلها عرفتينا وحوي انا هرتين اسكو دوقا يعني انا ديك اسبوعي بدلي انت سو دليره اللي توقتي او ازديش ما حاسه ولا ليها قبيله سببوها إلهي القرآن كسوح كوير سبحانه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل نسأل الله السلامة والعافية إلهي وحكور من قولات المسلمين وأهل الكتاب وإلهي كحرم إن إزدلال بلنوا إلهي قال لا تسفكون دماءكم ولا إزدلين ليجين هذا ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم قوليها إسكسارمين بلن متاها مسلمين بلن كاسا وذقان محام بلن كوغان مركز مسلم ترى مسلمة واحد بلن كوغا شخوف مسلم إن ليجيس حران كايه يا به كرعا وقف مسلم إن ليجيس حلال إيه مايا يا به كرقف مسلم قوليس إيه بنات أنا كعيلون كلوري مايا وبلن إلهي كقانو سوما لمنكن نجوا الإنساس بلن كأوقال إلهي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم كدي من واحد كان وزدليس وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كوح عليك كم قولوا لك سالس ريهب البحية درسك يا إصدعها قريها لك ساري هنتيها لك الوريق بابور مراي مقالوي ألا الوريق والمحادة ريهب الأولاد والريهب المالي والله محاني ريهب ما بلا نوليبه يا جماعة مخازي واحد دعاي أو قبيلة أي صومال وكانتي ما الدليل كرنو أنت نبضن لماذا ما دام كل سنة الرحم لا تشرع عقلي مسكح دياتك ما نفهمين حتى وحن نصوص الدين الواقعي حقيقة إلهي سبحانه وتعالى عن كعب سنة ولا ليه وليبلغ الشاهد منكم الغائب كي أنك نجمده حاضرة كان مقن هجارسي صومالي ده حدان أفهم إنه قبيلة إنه تهوي ولا ترى دت كده ولا فوقينا دمر أو دت ولا ترى رجع صومر الدمر كو أجنبي لوعكو ماشي دونا ما كيما لا تعصوا لا إحنا أب ظلم أي كل سنة رحم لجرا كل سنة دين إلهي كل ما إيمانك إلهي إنه يسكو حريري وحلو فوقي ما تقانا أي جالس خوف بريء ظلم السماء اللي خاطرتي علينا أقول يعني علينا علماء علينا جناحات المحل علينا فيه بلاد النجدي وإن كان اختار كهذا يوروب كي ميت كان شاقة وهذا كي وضمان المسلمين ودنا كان سوامالي كمان ولا حد يمين ولا توقت محل ودي فيه بلا ولا تنسى الكار قف النجدي ما له ولا أقولي ما ينن كان بولاد كان أقولي شاقة نوع جيتنا برمية فيه بلا وكانش دوحي نجاش وحول بالرهب مركز اللي الرهب لما عبده وهذا بقى يجي يبي وعش سومالينا قبيلة دي كلها متشتي كتاب القرآن كأركان وحلو مركز أركان قبيلة داية واتورين كتاب كيولي وحلو وانحن نحد إن كتاب واتورين وكتاب سوما قبل مركز قبيلة النقط هذا المعنى السداسي ولا جيتكو حوالي عليها قبيلة ده dhulkeenii naga ceeriday meel kastoon tagnay nooga daba gashay moojeeda waxay nagu raali geliday inaan ku dhoolaano dhul baraf iyo dab iyo qarax iyo xabad iyo daroogo iyo kufri iyo balaayo iyo xaad oo buuxo dhulkeenii nabadda iyo wanaagga iyo jawiga fee qabow iyo kulayl iyo baraf iyo balaayo wareegay malaha xataa loo baahna qabowjiye xataa u baahna meelaha qaar Soomaaliya sanadka dhan waa isku jaakado iyo hadba sanadka isxiriyo waxaan adkashanaydo malaha caafimaadka qorraxda ilaahay jawiga isaga waxaan naga xambaaray wax kala ma waa qabyaalada keentay nin faajira oo ogtahay ma taqaan inuu faajir yahay mujrim yahay inaad jeclaato nin saalixa oo ogtahay inuu saalix yahana aad fogeydo li ajli waxa way aabaha ku abtirsana ugu dambeyn walaalayaal
qabyaaladu dadka waa qabyaaladu waxyaaba la yaab kale waxa weeye qabyaaladu meel ay ku dhamaata mala Sheekh Cabdikariim Xasan Xushuur waa basal iyo qeyrkii waa basal موجودة حتى أنا وذاك الشيخ محمد زكريا فردنا قف كلام متقنا أو نقصي بحثنا ولا حمانين مركان كلا تجنو أو مثل أنا من هذا الشيخ محمد يجي يردو حق أباه الشيخ محمد الله حمانا كاس أنا الله حمانا مركو مثل حق أباه يجدو أنا حمانا وسلسلة سعة تمالي كل ما تملا دتك إسكتولة كنولا دتك إسكون عب سومالي oo dagaal kama dhamaado oo isdhalaygo oo fiirso Soomaali dagaalkeedii guud waa ognahay guud ahaan Soomaali dagaalkii dawladda Soomaali lagu riday magacyo qabiil lagu riday qabaa'ilkii ridaa laf isu lahay laf mid ay isu dilay mid shalana boora la wada watay laga iska dhigaayo in la isla jiro waa been waa cala shaydan xambaaro waay sidii loo soo socday galisi waradii awal qabyaalad aad ku wada socoteen oo wax gooni idin ka dhixeeyay maxay isu leeyihiin waxaan waa hawl ibliis waay waa hawl ibliis ummadda ku baabi'inayo ku laynayo magac u yeelayo diinta Ilaahayna waa ka soo horjeeda adduunyadana waa ku fasahaada waxa weeye diintana adduunyadana waa aragnay diintana waan aragnay sida Sheekh Qaadir sheegay wadaadka xataa laga dhageysan waa reehbil waa reehbil diin looga dhageysanayna waa dad dadka khayrka u yeerna ما خير كدونا ويا وحنقول ختمة يعني إنك اللي هذا مين وحاجة قبيلة غير حنيفة أو مسلم أها أنتوا نبوا نولا عليه السلام مسلم أها مركوا نبوا الانتي أيها وحلا شيء نريح كيساه نبي نوشكته مسلم أنت الكذاب اللي هذا نكي وتجنيه ومن نبى تهيئ ها والإيش يروح وآخر واحد هو وحي أنا ولا تشوفي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشوفي سو طبعا محمد بويري ولا تشوفي بويري وأنا أقاناه فالعدونا وآخر مركو كل الآخرين ودقيسة قودي سر مركو مقلوبي والله وحروه إن الأكتة بين على إن أتى إن الأكتة هاي شيء من بين على أوريبنا حنيف أيا كتش على من رولو أوريبنا مضر نبي صلى الله عليه وسلم كورام سازو دينتي لا يوضح nin beenaala oo reerkiisa ayuu wuxuu yiri waxaan ka jecelahay nin rulo waa nabi Muhammad sallam oo reer bani mudar qabyaalada dadka qaarkood walaalayaal meeshaas naga gaartay sax maaha islaamnimo maaha adduun wax tar uma laha aakhira iska dhaaf ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tooba keeno raximkeena aan barano waxyaabaha xalka ah laba arrin hadaan ka sheego laba arrin banaaw ka sheeg xal insha Allah ilaahayna waafajiyo ko horta waxaad barataa hooyada waxaad barataa labadaada awoowe iyo labadaada ayeeyo labadooda waalid qabaa'ilkay noqdaan waxaad arkay inta badan Soomaaliya qabaa'ilkooda kala gelaya ciday galaan oo dhan xiriiri marka iyaga ciday galaan oo dhan xiriiri sida hadda la sheegay wadaadkaas muxuu ahaa qabiilna oo aabihi yahay mid kale oo qabiil kale yahay labada qabaa'il oo dhan xiriiri waa raximkiisi waa dadkiisi سان شيخنا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقرشي وحب أمري إن لحريريو ريا مصر محايا رحم بيني ودينا هويدي كيما دينا عبيه كورون مركا مدة كوال أمبرون الرحم كان أوغا هويدي أبها هويدي خاصة هويوينك يي أحيان ريرك أحيان مركا برانتو دادكا وطولكاغي ورحم كاغي مال الله اللي ماشي كسو جيدا الحرير تشاينيس حتى ديه أو يدا إن نقطة China غير China وادت كاجوا لأنتو ذا من نوران له نية جري له ومايا والرحم كدت كان على أمر إن حريرنا أنا حريرنا تاوا مد كوات تنلبان ولا ريال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب والقف كتشوجو وحي خير المقشر عليك يكون كان جدبي والعرب لا تحقرن من المعروف شيء odayaashu meesha odayaasha markay joogaan waxay wanaagay maqleen ay u arkaan inay wanaagtaan iyaga ay ku ekaana dadka ha gaarsiiyaan dhalinyarada sidaas oo kale wadaadada sidaas oo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala na caafiyo ilaahay kariimka noo dami dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimada Allah noo soo biyo ilaahay dadka ha isku soo jiido
waxaan magacyada badan loo kala yeelaayo laakiin dhiigga muslimiinta dhiigga raximka lagu xalaaleysana ilaahay naga bogsiyo wallahu aclam sala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina maxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال ير من ربنا كجوابه لودي شيخ إنه ختمتاس جزاكم الله خيرا شيخ خليف بارك الله فيه وأحسن الله إليه. يمكن خير الله ينسي والصبرتين. ختاما سؤال شو عكوس أفصلت هاي 4.5 واحد 4.5 واحد سمعوا الدولة ده كل سطحي wixii ka baxsan intaas oo inta midna ahayn ka warrama qofka ma ku jirin ba 4.5 ka warrama gabdhaha in loo diido in loo guurinin in la yiraahdo Soomaali ma aha arinta ka warrama su'aashaas ma istaan Soomaalida markii adduunka ay ka fakareen la yaabeen oo la kari waayo shir kasta loo qabtay ma ka xata shir la kari waayo baa loo fadhiistay waxa la yiri qabiil Soomaali caawidaan ha qabiil aanu qaybino oo xukunka waxaan u qaybinaynaa 4.5 oo dad badan ma soo gelin ba 4.5 oo kuwaana macnaheedu waxa way kuwa gabdhaha loo diido Soomaali ma aha xukun ma qaban karaan anu waxaan qabaa kuwa in xukunka loo dhiibo oo kuwa kale markaas qabiil weyn isku sheegaya ay isdilaaya in gacantooda laga saaro dadkaas u dhaxeeya loo dhiibaba oo laga daayo oo la yiraahdo 20 sano ee soo socota maxaa la dhahaa dir iyo daarood midna loo dhiibi maayo baasho qeexamad dhiibaya in la yiraahdo laga joojiyo qabaa'ilkaas sheeganaya waaweynka in laga daayo xukunka oo qabaa'ilka yaryar ee iska qabooy macna santeer xamarka iyo reer baraawaha iyo kuwa in loo dhiibo xukunka iyaga u dhaxayn kara ilaa si loo kala celiyo baashtaas ku fiican tahay si loo daayo oo qabiilka xal looga helo wax xal ninkan reerahiis haystaba maba ahaba asagu dadkan uu dhaxay asaga in loo dhiba fiican oo 20 sano ee soo socota iyagu hayna gaarsiiyaan dawlad midaysan halka loo dhibo walaalayaal waa dhulmi in la yiraahdo Soomaali ma aha wax sax ma dadka baraa wadagan Soomaali ma miya mesela marka kuwa wadagan Soomaali ma miya aan qabiilka ku jira kuwa xamarka hindida laha ee xamarka kuma jiraan cusub wax suurtagal ma aha walaalayaal wax suurtagal ah oo macquul ma aha maskax geli kara bal waxaan oran karaa Soomaalidu ugu reer magaalsan waa ee ugu qabow صراحة أو قروح ضبطن حتى هذه مذهب خلاهم واحد رنا الله شجع بوقته واحد شيل الله مشهد مركا هذه قبل لو جدي علشان رهب الماء دول بآدو قبل مرايكن شوكتا ما يوروب شوكتا ويل مسلمة والرحمة ردو كاسو الدون هذا هو رئيس انتاجا واحد شيء إنسان سبحان الله مودي وعليا بالصومالية ويوديدين وحي سوق حيستين جامايكان كله حكي قاعدة مركا أما نين عدان وقالك أنت ومسلم بهاي حد كيلي تمركا ولا لا يرى وحابها النوع عصق لتانس كدين قفك صفات كي سهلة في ريو النبي عليه الصلاة والسلام وركي سوحوها عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه في رواية أمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض هاتو دي ما تقف دين أيو أخلاق في عنتها أمانة في عنتها هاي أقوري هذا ديدان وحكت لنا فساد آذوي وحكت لنا مركا أريمها سالس كده جزاكم الله خيرا قف التلمامي سهل إيجو قف مية هاي مسلمة بل ودي سي حمانته وسميها الله إيجو هلو ودي ده وحنا هدون نقضى هالنقضى إن أديرك لحمي قبل كربها هلو ودي ده وح قفك وح ويا هاي السجع لكن قفك هلو وح كله أو قفك تعليم له أو مسلمة
oo nadiifa oo balaayi balwad lahayn hadduu ku yimaado oo gabadhaada ku keento baseed ugu diidi kartaa oo muslima marka khayr badan waa inaan bedelaan barnaamijkaas soomaalida waa inay wax bartaan oo qabyaalada ku bedelaan sidii mar hore ay xamar ahaan jirtay waagii hore oo ninka dariskiisa unbuu yaqaanaa wax kaleba ma yaqaan qabiil ma laha saaxiib bes u garan jiro صراح لكن بلد حاجة كتبي تولوين كي بادية كتبي تذكر مقال كم مقالين كلا قصاري وتذكر بادية مقالين كدقين بقبيلة دي تبي لك واور معي صراحة معي مركا المهم فتنة راس وشيخ كشكي سلو دميو تذكر دي بدي تشوغا كو كئه ودك خير هجيان وشركة حكدايان lacagaha loo ururinayo dagaalada iyo masaa'ibtan laga daayo waqtiga baa jooga intaas ku khatimaynaa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin جزا الله المشايخ خير الجزاء الله سبحانه وتعالى كابل مريو موضوعه سفي عنه وقروح بدن ayaa mashaayikh u soo bandhigeen xaqiiqatan mawduuca laga hadlayo waa qabyaalada ahi waa xanuun waana xanuun dilaa ah waana xanuun dadka Soomaalida in badan oo kamid ah wayna wada hayaa sida sheekhu horeba uga dhawaajiyay marka dadku markay bukaan ama qofka markuu xanuunsanayo wuxuu u baahan yahay inuu dawada qaato dawadana uu joogteeyo Soomaa hadduu marka qof xanuunsanayo hal maalin dee kiniinka cuni maayo hal maalin qofna kuma caafimaado dad xabad kiniina cunto xabadaas dee kuma filna marka si joogtaa in kiniinkii loo qaato loo baahan yahay waxay naga caafin karaa ilaahay diintiisa in loo soo noqdo gaar ahaanna adillada qur'aan leh ee xadiis rasuul leh calayhi salaatu wasalaam in fara badan inaynu dhageysano aynu ku celcelinno soo iimaanku soo aqligu u soo noqdo marka koobaad iimaanku inuu soo noqdo alla ka cabsi qalbigeena uu soo galo rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam fi xadiis al-fitan markay fitnooyinka ay bataan in dadka muslimiintu ay iyagu isdilayaan dilka badan doonaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam hatta yaqtula ar-rajulu akhaah wa ibn ammihi وذا قرابته إلا قفك ودلو كي لا دشي ودلو كي نادر كيها ودلو كي قرابدي ساها أبتيو إن أبتوي صو دافسا حتى نادر كي بدليا ولا كي بدليا كي قرابدي ساها بدليا رسولك وحي أصحابته ويديين والنبي الله ومعنا عقولنا يومئذ وما لنت أميانو عقل يجي موجوجا رسولك عليه الصلاة والسلام تنزع عقول أهل ذلك الزمان تذكر أنك شاكينا يوم عقوشو ذي عقلقو ذو لغا سيبيا waxay u badan tahay dadkii laga siibay baan ku jirnaa mar haddii inaga is gumaadayno oo is laynayno oo is dilayno dadka ama diin ilaahay baa kala qabata ama aqli baa kala qabta marka meesha diintu ay ka baxda ama ay daciifto aqliga yamaankuna meesha uu ka baxo wixii hadda laga sheekeynayay lagu dhex jiray ayaa laga yaabaa isla markaa inay qofka ka soo baxdo markaas waxa laga yaabaa sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam mid dadka kamida wuxuu moodayaa inuu wax ku dul sugan yahay qof hagaagsan buu ismoodayaa walaysa huwa ala shay waxba kuma sugna dadka ugu fiican ugu aqliga badan ugu maanka badan ugu fariidsan ayuu isku haystaa walaysa huwa ala shay xalli wuxuu ku sugan yahayna ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahadith al-fitan ayaa jira ahadith la yiraahdo kutub as-sihah was-sunan ka buuxda waa baaban u baahanahay inaan aqrisano si joogtaan loo aqriyo marka qof kasto inaga mid ah oo aanu aan idinku horeeyo nafteena inuu daweyno qofka markuu buko waxa la rabaa inuu isagu naftiisa daweeyo ilaa uu xanuunsanayaa hadduu isagu is daweyn waayo cid kale oo daweynaysa ma jirto marka dawada aynu qaadano aynu joogtayno
الله كعبس إن لن يمادنو آفاتك لسانك يا عربك أولي هينا أنا سكيل علينا بريت ولا الظهر إن شاء الله تعالى محاضرة شرتا آفات اللسان لقى هذا الله قفك عرب كيسن بلا يوين كيس أيو دبته أولي هينا سكيل عليه ومحاضرة قيمة الشيخ عبد القادر عكاش إن شاء الله تعالى إنه شيدين دونا ويفعلان الله قفك استوي من كرا إنه يمادلو دقيستو قفك كلا فوق أما مشغول كاهنا مساجك أونلاين كيس وكذا جيست إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى دنبيجنا هدافه دنبيج والدك إلهي سبحانه وتعالى هدافه إلهي عقوش هينو صوي عليه إلهي عقلنا هينو صوي عليه إلهي دينته هينو حوتشيه إلهي حمان قلبي جينا كشرته هينجسيبه هينجسوعه ولا لماذا دتك مسلمين تجودهان يجارهان صومالي ورد حيسي رب سبحانه وتعالى هينو صوي عليه فتن كاردا عيا رب سبحانه وتعالى هينجبت بهذيو قلوبتي يا قلبي إلهي سبحانه وتعالى هينو عافيه الله هينا شافيه الله عافي ما تاما هينا سيو حمانتا يا قبيالدا يا قرنكا إلهي سبحانه وتعالى هينجا عافيه ربي هينجا ساره إننا نيدينا رن أن أشاقنا إلهي سبحانه وتعالى أن قلبي جينا وقدب شاقنا حدين رن قلبي أشاقنا وقانك في عن لقاته وحبنا بهجاجية كوا هجاجة هرموت كونه إلهي سبحانه وتعالى هنجا يله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.